saaxiibayaal waxaan fiidiyogan si kooban ugu baran doonaa qaabka xogta loogu kaydin karo internetka gudihiisa iyadoo la isticmaalayo Google Drive-ka. Google Drive-ku waa service-ka ama waa adeegyada ay bixiso shirkadda Google. Application waxaa jira loo yaqaano Google Applications. Applicationo kala duwan baa jira oo shirkaddan Google ay bixiso oo mobilada Samsung-ka iskaga jira oo qaab default iskaga jira. Haddii aan rabo Google Drive-ka si uu eegaya inaan ku baro, Google Drive-ku waa kan halkan ayuu ku jiraa oo aaladda yarta ah waxaa loo yaqaanaa Google Drive. Waa goob storage ah oo safety ah oo aad ku kaydsan karto dhammaan xogtaada, videoskaaga, imageskaaga, dokumentiyadaada, informationkaaga, dhammaan datadaada, xogtaada oo dhan ayaad ku guran kartaa oo ku ridan kartaa. Waxaa laga yaabaa in mobilkaagu iska xumaado ama lagaa xado ama lagaa qaato. Waxaa dhici karta inaad xogtaada walwal badan ay kaa qabato. Waxaan baran doonaa qaabkee sida ugu fudud xogta loogu kaydsan karaa internetka goob storage ah isla markaana goobtaas ay noqoto safety. Waxaan geli doonaa Google Drive-ka. Drive-kii waa kan Google Drive baa loo yaqaanaa. Aniga waxaa igu jira xogo kala duwan ayaa u kaydsan Google Drive-kan. Waxaa muhiim ah inaad Google Drive-ka ku leedahay account ama Gmail inaad gashato. Haddii aadan account ku lahayn Google Drive-ka xogtaada kuma kaydsan kartid. Waxaan eegi doonaa size-ka ama xajmiga inta uu kaydinayo Google Drive-kan. Google Drive-kan storage-kan cabirkiisu wuxuu gaarayaa 15 GB. Waa 15 GB oo free ah isla markaana wax kasta aad ku guran karto. Backup buu leeyahay, xogtaada oo dhan ayaa backup ku samayn doontaa. Dhammaan xogtaada, imageskaaga, videoskaaga, dhammaan datadaada, informationkaaga oo dhan ayaad ku urursanaysaa. Documentskaaga, shahaadooyinkaaga, CV-gaaga, any data ayaad ku urursanaysaa. Waxaan baran doonaa qaabka ugu fudud ee loo upload gareeyo ama loo geliyo xog looga soo qaado mobilka isla markaana internetka loogu kaydiyo. Waxaan tegi doonaa halkan plus-ka baan tegi doonaa, plus baan leeyahay. Waxaa ii soo bixi doona daaqadan. Qaybtan waxaa loo yaqaanaa folder. Folderku waa markaad xog isla tusaan imageska meel ku urursanayso ama videoska meel ku urursanayso. Upload-kuna waa markaad mobilka ka soo qaadayso xog dabeetana Google Drive-ka aad gelinayso. Scan-ku waa marka aad xog documenti ama xog muhiim ah intaad scan gareyso dabeetana aad ku kaydinayso Google Drive-ka. Google Docs-ka waa dokumentiyadii, Word-kii iyo Excel-kii buu leeyahay iyo PowerPoint-kii. Kuwa inagu baahi uma qabno. Waxaan eegi doonaa ama baran doonaa videogan si kooban qaabka xogta looga soo qaado mobilka isla markaana loogu kaydiyo Google Drive-ka. Waxaan tegi doonaa upload baan tegi doonaa. Badhanka upload baan ku dhufan doonaa. Badhanka upload markaan ku dhufto imageskaygi waa kuwan. Marka aniga image ma rabo, waxaan rabaa documents inaan ku kaydiyo. Waxaan tegayaa meeshay ku qoran tahay my files baan tegayaa. My files markaan tago, then waxaan sameynayaa waxaan u baahanahay datadaydu category-ga ay yeelanayso waa maxay? Ma image ba, ma videos ba, ma audio ba, ma documents ba, ma downloads ba, ma installation files ba, muxuu yahay waxaan kaydinayo? Laftiga mobilka storage-kiisa ayaad xogta ka soo qaadaysaa dabeetana Google Drive-ka. Documents baan doonayaa inaan meesha geeyo. Documents baan rabaa inaan kaydiyo. Documentska ayaan kaydinayaa. Waxaan samayn karaa in aan documents PDF ah ama kuwa caadi ah inaan kaydsado. Kuwa Word-ka ah laftigooda. Kuwa Word-ka oo business-ka ayaan kaydinayaa. Tan markaan saa u doorto aan select gareeyo, 3 shay ayaa ii select gareysan. Haddii aad doonaysid all halkaas ku dhufanaysaa xogtaada waa kaydsan kartaa. Dabeetana done baan leeyahay. Done markaa idhaahdo wuxuu kuu sameynayaa in uu ku dhaho location-ka aad dhiganayso sheeg. Haddii aad hore usoo samaysatay folder, halkan ayaad ku dhufanaysaa. Halkan waxaad ka baaraysaa folderkii xogta aad dhigan lahayd. Dabeetana select ayaad leedahay, folderka ayaad dooranaysaa. Saasaad ku save garanaysaa. Haddii aad iska dhex dhigayso oo xogtaada aysan qaabaysnayn oo aysan xogtaada order lahayn, Gmail-ka account-ka ayaad gashanaysaa. Account-ka ayuu kuu sheegayaa noocaad gashanayso. Then xogta waxaad leedahay upload baa leedahay. Upload to Google Drive. Waxaa la preparation ugu sameynayaa in xogtaada lagu kaydiyo 2 item Google Drive-ka. Haddii aan doonayo xogtayda inaan arko, upload-ka ayaan ku dhufanayaa. Dabeetana xogtaydii aan soo kaydsaday, maadooyinkii, business-kii, imtixaanaadkii, waxaan soo save garaystay halkaas ay ku jiraan. Google Drive-ku waa very important weeye. Any data ayaad ku kaydsanaysaan. Aad baa mahadsantihiin saaxiibayaal. YouTube-keena Ayub Technology. Follow dhaha, subscribe na saara. Thank you very much.